maalin dhaweyto haweeney baa soo wacday in badan bay telefoonka igu soo celcelisay anna mashquul baan ahaa xafiiskaygaan joogay qiso markii dambaan la hadlay dabcan qofka iyo magaciisii iyo ma sheegayno annagoo ilaalinayna maaragtay wax badan laakiin qisadu waa qiso xanuun badan waxaan idinku sheegayana waxa weeye waxaan u baahannahay inaan ka taxadarno haweeneydaas waan wada hadalnay telefoonkii bay igula hadashay waxay tiri iyadoo ooyeysa oo xitaa aan hadli karin oo hadalkeeda aan fahmi la'ahay oohinta ay ooyeysa darteed yaa waxay ii sheegtay arrin aan aad uga naxay runtii oo shoog igu riday waxay igu tidhi maanta wiil aan dhalay oo 13 jir ah yaa wuxuu ii sheegay inay niman ciyaalo suuqiin ah oo superpower iyo wax la mid ah ay isticmaalayeen muddo 7 sano years ma noolaba wiilku dugsiga markuu ka soo baxo jidkay u istaagaan bal dugsigay ugu tagaan iskuulkay ugu tagaan 7 sano bay isticmaalayeen rag waaweyn dhowr iyo 20 jir ah ma noola haweeneydii wax alla waxay samayso ma laha way iska ooyeysaa maxaan sameeyaa bay leedahay ila taliya waxay la qabta wiilku intuu kaxeeyey ayuu wuxuu tusay qaar ka mida raggii faaxishada ku samaynayay korka ka tusay waa islii meel kale ma الله المستعان gabadhii haweenaydii ama hooyadii waxay tiri aabihiis hadduu waxaa maqlo suurtagal waxaa horta nimankii inuu dilo oo gacan ula tago oo kow ka siiyo diliba dhiig inuu daadiyo shakiga ma jiro inuu dili taa hadday dhacdana waa ka sii daran tahay sheekadu bal xataa wiilkan ka yaabay inuu dilo uu yidhaahdo khalaas kan faa'iido ma laha uma sheegi karto odaygii way ka baqaysaa waxay kaloo ku leedahay nimanka hadda taqaanaan dhimal askar baa loo dhibay waa la xiri baan ku yiri dad askar oo ciidan oo muslimiina jireen hayaga tii loo sheego nimanka waxa sameynaya madaxa laga qabto hal xiro maya hadday taas dhacdana qadiyadii waa la ogaan waa nuceeboobi wiilkayga mustaqbalkiisii iyo qoys ahaan oo dhanba ceeb baa nagu dhacay taana mar rabo inaan sameeyo يعني مجتمع دبك هيستا بان ربعنا دي شيغو يعني مجتمعين دبك هيستا لبير ما اها تلوين كاسيي حاكمدا دبرت ان الله سبحانه وتعالى الله بطو ويلكنا داويلكم markii dambe uu isdhiibay caruurtan hadda iskuulada iyo dugsiyada aan geysanayno ma ka warhayna xaalkooda si waan u eedeeyay gabadha waxaan ku yiri wax 7 sano socda inaad adoo hooyaa garan weydo horta gaabis baa meesha ku jiraan ku yiri midda koowaad hooyadu door weyn beelada ilmaha dhaqdhaqaaqiisa meeshuu aado jirkiisa wax walba waa inay ogaato laakiin maxayna lagu saliday naaga guriga ka shaqeeya damba kama laha hooyadii kuwaas laga yaabo haddii xataa kuwa yaryarina loo qubaynayo inay u qubeeyaan waxba kama oga dumarku waxba kama oga badan oo ka mid ah runtaa fiican soma هذه مصيبة
مسؤولية ضرو حابان كل تلي وحكم إذا هرتا ويلكين هالكن لقاك حيو ما دام بيأفها سيدا أي تهاينا مانكي لبعضها كوسا من شرين أي شوغان وحيي شكتين سوماليا كسو تشيدو سوماليا جيبان كوري ما شرينكين كسو تشيدو بالمركة هورك هكذا لحب حب إذا تقول لك أنت كوسي دح شرو وحوي حتى نفتي سو بقيا هوش وسعنس تلاذو أبينا وشك بانكور هدور وهدي لي وحلا قارن كرما وحلا قارن كري وحلا قارن كريم باكرة تنو كله وحلا قارن كرما لما كاسنا وحبا ويل سوى عاد يعاب من هو الله فرحمي ولا حوي ولا دباتيه ومنتها لقى قبطوا عروض ضمبو الصوماليين يويل ضمبو الصوماليين دباتين لما كان سوشيال بانكويل مال بالله وصو هري المهم وحنا يقول شيء قصة وحوي كل جن هو يباتين كل جن أبيال بنا waxaa markaad maqasho markiiba carruurtaadii baa kugu soo dhacaysa Soomaa markiiba kuwaad eedada wahayd iyo kuwaad habarta wahayd baa kugu soo dhacaysa Soomaa jira marka Soomaaliya fidnada ka jirta meeshan wax maskaxda bani'aadamka gali kara ma